xaaskaaga eed miya qofka xaaskayga ahayd uur ay lahayd sariirta uu ku dilay waa sariirtaas dhiiggeeda ayaa dul saaran waa u jeediyay mid gudoomiyay waxa mucjiso ah oo la yaab ah gabadha saas ku jecel xaaskaaga ah oo ilmahaaga calool ku wado ina anta wacdo ina disha wacdo gacanta saanta iskaaga filqay gacanta abskool daxbad iga gudoomiyay wiilkayga Allah barakeeyo way kulmiyay indhigu reerkayga la baxay nin naagtiisa de meeshu ka mari karto كودي بيشي مي نميت كذا اللي كان والله وهرت الله وقف صعبته وأصدرنا يا عرب اسكوده وأسقنينا يا wuxuu u wacay ehelkiisii gurigay soo galeen wuxuu wacay dadkii la qaadi lahaay dhalinyaro wacay wuxuu wacay gaadiidkii oo gurmadka ku sameyn lahaay ayuu wacay wuxuu geeyay isbitaal baabajeega isku baran wiilkan babajii maxalla ciyaar la ciyaaro waay marka hore guriga joogto miya habeenkii bixisa oday wuxuu dhahaybo waxa ku laaban ciidaas hubaal waa dhacdo inaad maqashaa ku rogaysa gilgilasha qalbigaaga hadiiba qabarku uu yahay qof ayaa loo haystaa inuu dilay xaaskiisa oo xamil ahayd waxaadna u gudbi doontaa kiiskan murugada leh inaad iska weydiiso su'aalo badan haba ugu horeysa sidee khilaafka qoyskan uu u gaaray heer naxdin leh oo naf lagu waayo kadib barasho ka bilaabatay ciyaarta dagaalka ee PUBG Mobile Sahra Faarax Yuusuf iyadoo 17 jir ah ayaa loo guuriyay Deble Nizah Abdullahi Ismaan Abdulle Ahmed waax oo isna wiil daayir ahaa waalidkiisana la nool haddana waxay Allah subhanahu wa ta'ala ay ka sugayeen inuu dhabta u saaro ubadkoodii ugu horeeyay oo xamil ay ahayd markii labaad maadaama hore uu kaga soo dilmay uur hore waxa ku dhacay walaac sida aan dhahno waase walbahaar iyo culays maskaxeed mararka qaarna saameyn ku yeeshaan dabeecadda qofka gaar ahaan haweeneyda uurka leh oo la tacaalaysa isbedel jireed iyo kuwa nafsi ah taasi waxay keentay xanaaq murugo cabsi iyo dareemo isbedbedela balse weligeed ma fasirayso sabab loogu qiilyeeli karo jirdil ama dil wax badan uu waalidku dhaxgalay xadgudubku ma joogsan dacwadii ugu horeysay ayay u gudbiyeen ehelada marxuumadda waaxda garmaqalka ee Nizah oo ay ugu cabanaysay Sahra jirdil iyo dhibaatooyin la sheegay inuu u geystay seegeeda eedeysana wax taasoo xitaa gaartay furin mar dambe waa la isku xaajeeyay iyadoo xalku uu ahaa inay maalmo ku qaadato guriga reerkeeda waa la isku soo hiloobay habeenkoodii bishii shanaad 2026 ayayna u soo hooyatay isagoo banooni ka yimid xilli dambe waa buuqeen haddana isla habeenkaas kadibna ninkii wax ahaa xabad ka dhacday bastooladiisa ayuu ku reebay xaaskiisa taasoo qaybta bidix ee xabadka kaga dhacday marxuumadda markii dambena ay u geeriyootay eedeysana wax isagiina waa kan kas iga ma ahan la taagan gudoomiye markuu falka dhacayo ka hor guriga shaqada markaa jiray waa ka imaaday banuuna iska aaday 5 saac iyo meelaha bar camal markay guriga 6 saac ku soo gal camal guriga markaa soo galay iyada way jiiftay islaanteeda markay jiiftay qolka markaa lugta koobaad soo galiyay tan labaad ku soo kacday markay ku soo kacday maxay tiri xiligan ma iimaanay 9 saac ma iimaanay 9 saac beenis 9 saac maxaa dhahay xiliga waa dhow yahay 9 saac ma iimaanay dhahay xiliga waqti 5 saac mal waaye bariyaana fasax lahaay maalinta jimcaha fasax lahaay oo markaa banoon iska dheelo maalinteeda fasaxiga ugu aandeen oo shaqada saas war ugu dhaadhicinayay ula hadlaayay cabaar muddo qaadatay kadib maxaa go'aansaday buuqa u socdo inaa guriga kaga tago markaa guriga inaa kaga taga adamcay baskoolada ebel markaa guriga soo galay waxaan saaray iyadii indikaarkii telefoonka miiska oo kumadiinka maajada sariirtan waa ku fadhiyay kadib markaa sariirta ka soo degay waxaas dhahay baskooladan isku dhibaateen iyada ka qaad marka hore u sii baxaayo hortaada markaa dharka gashanaysa hortaada ha taalo iyo isku dhibaateen qof maseersan waa dumar ah saasa ugu qaaday meesha kadib markaas ugu qaaday baskoolada iyo idkaarka iska kor saarnaayeen baskoolada dhaxda ayaa ka qabtay markaas ugu qabtay iyada xagashi halkan iga qabatay oo dhinaca kalida xagashadii baskoolada gacanta midigta saanta isku hayay idkaarki gacanta saanta iskaaga filqay gacanta baskoolada xabada iga gudoomiyay xaaskaaga eed miya qofka xaaskayga ahayd uur ay lahayd oo cunugaygu horeeyo ilma hore ma dhalin miya cunug hore waa iga qaaday waa iga saqiir laakiin waa ka soo halaabo marka buuqa marka hoos tartiib soo galdhaysid buuqaas maxaa keenay buuqa ay gabadha ka careysantaa maxaa waa xilliga ku soo daahay waa iga soo xilliga waxa u maaday 9 saac waaye balaay iga gashay aan iyada 9 saac maahan iyada hurdo qofka soo kacay waa saacada ma fiirnin 6 saac miya ama 5 saac bar waxaas ahayd
وصوت ضحضي كوه استامع ها marka falka gurigi aad degneedeen oo ka dhacmaya meesha falka guriga degneen guriga markii la soo degnay maalinta ka horeysa lacag ka shubnay guriga kuma nagaanin mana seexan oo qadartiya meesha qorneedbo habeenkaas seexan rabnay oo falka ka dhacay markaas soo guurteen miya markii la soo degnay maalintii ku soo guurnay habeenkaas seexan rabnay falkaas ka dhacay oo qadartaas ilaahay waafij ma qaawada joogteen aqoos aheedeen qoys laba sano kas ina u dishay gabadhii oo dagaal kala dhixiyay lagu dacweyna wax ka ma jiro gudoomiye waxa waa qadar iga dhacday xaaskayga waaye oo ina kas u dilay warqad ay ku qoran tahay ana ku cadiyo ma jiro isku dhac hore sheegayn oo lagu qoray isku dhac isku ma qabin baxaaskayga isku dhac maxaaskeenay aabbaha dhalay marxuumadda faarax yuusuf maxamed walaalka marxuumadda cabdiweli faarax yuusuf walaalka eedeysanaha maxamed cusmaan cabdulle hooyada dhashay eedeysanaha luul xuseen maxamed iyo leyla faarax yuusuf oo babjiga iska bartay eedeysanaha ay marxuumadda ayaa la dhageystay horta dhammaan waa idin salaamay magacayga cabdiweli faarax yuusuf waaye gabadhii oo ninkaas oo naga qabay wasaare faarax allaha anaan dhasho halkeed ka weyna ahay aniga kiiska meesha ka soo galay waxaa ka ogaa waxaa waaye in ninkaan tiro 2 jeer oo gabadha waxyaalo u soo geystay maadaama odagana oo ka xaliyay oo ana la ogaay maalintii oo habeenkii maalin ay ka soo carootay xaafadda imaatay markii xaafadda imaatay habeen 4 saac maray ahayd oo odaga la hadlo wuxuu dhahay noocidaan waa isku badbaadateen ciddii ku dileed waaye ha aadin xaafadda abaar 4 saac markay tahay waa iska ogtahay nin xaaskiisa wacday oo dhahay oo farsamo geli nin gabadha gurigeeda ma joogayso abaar 4 saac ay baxday ninkii aaday isla habeenkiina waxaa la soo sheegay in gabadha ay meed tahay mar 9 saac ay tahay aaba la soo wacay kadib intaas ka ogaanay gurigeeda marka hore guriga joogta miya gurigeeda joogtaa guriga aabay joogtaa habeenka ka horreeyay habeenkii bixisa odayga wuxuu dhahaybo waxaa ku laaban cidaas may habeenada ka horreeyay bixisa habeenada ka horreeyay guriga joogta miya guriga joogta markaas marka caro waay waxa soo carootay isla gabar soo carootay taqaanaa marka kadibna waa isxaliyeen موبايل وكحلي عندنا قرية يجلس يسحلي هوس كحلي هاي يجلس لكن حالك ما أصلا مركز صوت هاي هذه قرية ساكون نقن هذا كنا قلتني وضدك يكون دلها ما فهمت لما شذا مركز صوت كذي بعلو تقعدي أنا جماعة ها لما شذا مركز صوت سلهبين كي قبل الردي ها استال بالجيب أساب الجيب استال سقلا استال حقت عن كلمة مركز جي أبين 8 صاحبين أنا لصوعي أنا أبا صوع 8 صاحب بر أبين زارع أميد oo yaa dilay oo ninkii qabaa dilay anigu waa maleysan waay marka salaad subaxan tukanay aan baxnay isbitaalkii aadnay kadibna waa soo gabadhay marka xaqiijinay ninkaan asaga raadinay inuu qolada nabad sugidda ay haysaa aan ku wargeliyay kadib marka xaqiijinay kadib waxa la aska soo baxnay gabadheena isbitaal iyo wax geysan iyo fariis iska fariis wiilkayga Allah barakeeyo way kulmiyay haye indhigu reerkayga la baxay gabadh baan 17 jir markaas siinay waa la ballamay waliba waxaan ku leeyahay gacali oo gabadhaas 17 jir waayo guriga kama bixin adeero ka raaxayso hayga dilin hadaas qabataan aniga la jiro dhalay ii keen adeero gacali hayga dilin 10 goor waa iga soo dilow markuu soo dilow waa u yeeray waxaan adeero gacali waxaan say ku dhaaheen waana ka ballamay arrinkaas adeero anigoo waa kana waa istirtay been la marro ma ogtahay 3 goor 4 goor saad u sameeyay waliba gabadhu waa furay laamiga inta isku qabsadeen dalqad ku furay subax kalena oo ilmaha weyn hooyada gurigooda jooga uu soo wacay Cabdullaahi maxaa dhacay wuxuu yiri Sahra Faarax Yuusuf labada qodob baa ku furay waa kala dhamaanay ma ogtahay marka kala dhamaanay ka bacdi wuxuu sameeyay waxaan siiyay nin reer Boosaaso ah gabadhiga soo doonay ninkii baa ku daray ninkii markaa ku daray ninkii gabadha wuxuu ka qabi waayey ninkan anigu nabad sugid baanahay bastoodaan haystaa wallaahi na noqonaya bilaahi tallaahi cadaab maqfuudun waan ku daraa akhraan ku daraya waa jeclaa miya macnaha haa wuxuu yidhi haddaan ii furin waa ku dilaya wiilkii bay soo wacay wuxuu adeerow gacaliyo faaraxow ani gabadhii waa dhaqan lahay maxaa ku dhacaanay cabdullaahi yaa ka dhaqan lahay war cabdullaahi waa kii gabadha sidee dalqood ku furaye ilaahay ka cabsi gabadhaa qabaayre anana aabbaha kula jiri mayo yidhi ninkaas way dilayaa
siba gabadha ninka ku furay markuu saa ku furay waxaa ii yidhi nin la dhashay nin la abtigiisa aan ahay oo hooyadiisa qaba abti maaha hooyadiisa qaba iyo nin adeer baanu ahay waahayda adeerow gacali waxaan kaa rabnaa ninkaan iyo gabadha inay isku noqdaan waxaana cabdulaahi anugu gabadh siin maayo cabdulaahi anugu gabadh siin maayo sababta ta way xakaariyeen lix sanaan jiraa hadda goortii laydhowraa xanaanan lahaa baan ku jiraa ninkaana nafta ii keenay dagaal habeen walba kuma jiri karee igadaya ninkaan mee wuxuu yidhi kii abtigaa sheeganay mana hooyadiisu qaba anugu abti ruulaan moodaye hooyadiis dhasheen moodaye midka hooyadiisu qaba wuxuu yidhi anigaa ka mas-uula anigaa mas-uuliyadda qaadaya inaan saarin mar dambe la dilin gacan la saarin inaan wax laga hadlaynin anaa mas-uuliyadda qaadaya waayahay walaalkii maxamed nin yaroo fiican oo askari military oo hadda la joogo walaalkiisana wuxuu yidhi sidaasoo kale yidhi ninkaa ceebka sheegan maayo maxamed waa nin fiican been lama rabo markii gabadha ninka keliya oo ila soo faranjiyeerka iyo c i d iyo madiina ila geeyey waaye intoo kale maya markay saas u dhacday waxaa dhacay ninkii gabadha jildul xun buu ku sameeyey bastooladu ku lafgaraacay jilkeeda meel wasta dhiga iskaga soo taagay ilaa waa taqaani naf ma lehe nabad sugudaan wacay waxaan tegey degmadeyda horta xamarsi baan degan anigu degmadaan tegey nimanka nabad sugudda degmada joogaan tegey waxaan warnimayo sidaanay haysta mana loo dhaqmi karee maxaan yeelaa waxay adeero lambarkaa 199 wac ka dacwey meeshii aan wacay waa ka dacweeyey waxba igamay qaban laakiin documentarygii ayay keeniyeen xeralyahan oo keenay xeralyaha yaanu keenay laakiin masuuda ninkii waxba ka may xidhin may caan sidiisay ku sii daayeen hawshaasuna halkaasay joogtay oo nabad sugudaan u gudbiyey ninka dacwadiisii oo waxaan warnimeeyo ninkaas iga qabta gabadha maalin waa dilay saan usoo jirdilay jirdigu ka muuqda waa kane iga qabta ninkaas cabdulaahi wiilkayga wuxuu ila dhaqmay si aan dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka islaamka midna ku jirin 29 bishii abriil aan gabadhii qolka ay deganta ugu tegey waxaan aabbow ninkaa iyo naagta dhashay waa ku dilayaan ninkaa iyo naagta dhashay waa ku dilayaan aadin inta 4 bilood abshir alla kaa dhigayo gurigiina joog waxay cuntu waxay cabti waxaa qaataan ku siinayeen nin naagtiisa dee meeshu ka mari kartid habeenkii maalintii waxayay 4 saac ayay guuraysa ku dhawaata bishaas moogta abriil waaye 1 bishii may nimaydkeeda lay keenay waxaa maxkamadda ka codsanayaa sharafta leh garsoor iyo gudoomiye iyo garsoorayaal ninkaas cabdilaahi wiilkaygiya in meeshu gabadheedii mariyey la mariyo gabadhaada goormay soo laabatay 29 yaan ugu aan idhi 29 baan idhi aabbow aadan ciddaa naagtaa ninkaas islada waa ku dilayaan nin naagtiisa waa kaga fara dhuuban yahay 4 saac bishii 30keedii 4 saac ay guuraysa oo isaga aaday markay aaday 1 bishana meydkeeda lay keenay gabadha iyo ninkeeda waa isdileen dhowr maray xaajado la galaan leeyahay waa jirtaa waxaa waaye hadda ka hor gabarta iyo wiilka naag iyo nin isqabana waa isku dhacaan marka aniga gubad leeyaan deganahay iyakana waxay degan yihiin boondheere marka cabdulaahi hadda ka hor gabarta dumaashadii way isgaareen arrin oo saas u dhacday oo ii soo sheegay labadooda inay isku dhaceen waa jirtaa oo odayga alla hadlay odayga oo gabarta dhalay marka habeenada ka mid ah waxaa dhacaa anoo darjiinka jooga meelaan ka shaqeeyo aafal dhacayaa lay dhahay dumaashadaa dhimatay saasay wax u jiraan isbitaal kalkaal aa loo soo socdaa anna darjiinkaa joogay goobta ee falka oo ka dhacaya habeenkaas ma joogin ani bas gabadho walaalaha ayaa meeshii ugu yimid oo goobta aan joogo ka shaqaynayay 8 saac iyo bar habeenimo baarasaas ay tahay waa soo baxay isbitaalkaa imaaday kalkaal meeshiyaa galay gabartii naftu waa ka baxday cabdulaahi aa meesha joogay cabdulaahi aa meesha isku aragnay arrintii waxaan dhahay wax u jiraa isla markii boondheere qolada nabad sugidda ku qoran isla markii oo wacay usaa guriga ka soo waday gabarta iyadoo dhaawaca oo isbitaalka keenay isbitaalka markii la keenay aan la soo sheegay isbitaalka ugu tagay yaa wada markaas usiga iyo dhalinyaro kale oo xaafad degan oo garab soo siisay inay la soo tacaalaan isbitaalka ka soo gaarsiiyaan asaga marka cabdulaahi ka wadaa ha cabdulaahi waa la socday markaas marka
meeshii aan imaaday gabadhii isbitaalka kalkaala qaybtii ay ku jirtay qolada nabad sugidii aan wacay cabdullaahi isla markii nabad sugidii aan ku wareejiyey waxaa la geeyey godka jilacow waxaan wacay gabadha aabbaheed maadaama aanay cabdullaahi aan ka weynahay waxaan dhahay adeer arrintaasaa dhacday gabarhtiini isbitaalka kalkaala ay ku jirtaa oo way dhimatay inaan noogu imaadaan rabaa odaygu wuxuu yidhi oo gabadha dhalay khayr allah siiyo wuxuu dhahay saacaddan habeen waqti dambe waaye hadda kuuma imaan karo subaxii aan kuu imaanaa okay aan dhahay meeshii isbitaalka habeenka joognay cabdullaahi ilaa e c a d waa isla tagnay gabadhii waa soo wadnay waxaan keennay saldhigga oo boondheere waa ka soo wadnay waxaan geynay c a d maalin jimce ahayd kadib haddana waa ka tagnay waxaan tagnay isbitaal madiino dhacdada hore waa xaliileeda maxay dhacdada aa xaliyey oo ani aan la hadlay odayga aan u tegey waxaa waaye gabadhii iyo wiilka inay isku dhaceen ay is afgaareen ee kadib labadooda ay isfahmeen gabadha cabdullaahi aa ii sheegay ani gabadhi lama hadlin oo bay ma sheegi karin nin weynaa soo maahan cabdullaahi wuxuu yidhi anigii iyo dumaashidaa waa isfahanay arbaxsha yaraa iga gaartay marka guriga aabbaheedii aado carootay marka aabbe in lala soo hadlo familka gabarta laga soo xaliyo sidii aan isku soo raacno gurigeen iyo reerkeen aan ku dhaqanaan rabaa walaalkay iga weynaa tahay kaala arrintan ila gal sidii aan gubadley ugu soo baxay boondheere ugu imaaday waa israacnay guriga oo adeerka aabbaha gabarta dhalaan tagnay meeshii aan ku wada hadalnay xaajadii aan raaligelin ugu bixinay raaligelintu waa naga aqbaliyey meeshii aan ku faatixaysanay gabartii iyo wiilkii inuu ilaahay isku dhaqo reerkooda inuu ilaahay isku dhiso sidii aan ugu soo tagnay farqi badanaana u dhexeeyo arrintaas markay dhacaysa iyo falkaa markuu dhacaayo ma isku xigaan maya iskuma dhowo waa mahadsantaa iska fadhiisa adigan maamulul waxaa la rabaa inaad warbixin bixiso see wax u dhaceen wiilkii iyo gabartii ka faallo horta meeshaa ka soo gasho wiilka hooyadiisa aan gabadhan habarteeda ahay qadaraa timid ana ma jooga habeenkaas guri agteena toobaan guri nagu soo galay waa ka guurnay marka guriga cidaan kor saarnay guriga ay jaarnay habeenkii 2 saacaan ku guurnay maadaama guriga biyo la-aan u ahay habeen oo dhabartii ahayd qayliyaan aan maqlay iyo hooyo waa ku soo baxnay gabadhii aanoo daawaca aan hore u qaadnay marka intaasaa ogahay wadana guddoomiye wiilka iyo gabadha iyo buuqooda iyo doodooda ma maqlin wallaahi maya markaan falka dhacayaan maaha soo gabadha markaas leema imaanino ma maqlayno hore ma maqlayno dood ma jirta gabadha waa bixi jirta waana imaan jirta dabeecadeeda fasaas eed waa bixe waa markasta waa bixi jirta habeen xataa waxaa jirta 7 saac albaabka inagu balaqday ee naga tagtay guriga cidli anakoo hurdeyno ilaa awoodiis ilaa nafti igu soo celi albaabka balaqay igaarkoo hurday bisolad ka taalo intaas xataa waa jirtaa warxumada allah naxariisto marka intaas ogaa guddoomiye yaa guriga kuna noolaa habeenkii wax dhacayaan habeenkii ilma yar 3 cunugoo yeer habeenkii 2 saac ku soo guurno guriga aan deganayna biigano u galeen maadaama guriga biyo la-aan u hahay guriga aan joognay aan ku haray waa xanuunsanaa habeenkaasiiti ilaahayna markhaatiyo ku yahay intaasaa ogaatay doodahoodana wiilka iyo gabadha dhowr maray dagaaleen hadda ka hor la isdacweeyey doodahaas ma jiraan wallaahi horta 2 qofood isqabto waa isdiriraaya carab iyo isku dhow waa isqaniinayaan dad isqabo kulli xaaladooda waa taqaani dad waaweyn ana waa fahmi kartiin gabadha waxay aad u kulleed ya marka wax badan waa la isdir laakiin wax oo gacan ka hadal ma jirin taasaa ogahay aniga iska fadhiis waa ku salaam marka hore teeda kalena aniga aabahayga xoogaa dhiigkaraas ka hayo wiilkan wax ma waa ka saaxiibo meesha ma uu joogin ma guriga ma joogin aniga walaasheena iyo habarteena joognay iyadna waxay noo imaaday soonkii markii laga baxay isbuuci ninka ay la soo joogtay hooyadiis isku soo dhaceen waan noo imaaday hooyadeen meesha nama uu jooginba faantaman maalintii aabbo baxaaye ninka hadda ka hor xitaa wuxuu noogu dhoo shimbiro noo soo geliyey oo walaashay markay isku dhacaayeen waa dacweeyey aabba u sheegay waxaa dhaha aabbo ninkaan naga qabanay tool ma lihin miyaa ninkaan ma naga qabatay wuxuu dhaha xitaa intuu fariin iisoo diro kool codkiisa xitaa waa hayaa wuxuu dhaha shimbirta ma aragta hadiyadda shimbirta maxay ahayd shimbirta lug ka jabanay ahayd oo marag duuduuban oo noo soo geliyey oo dhimataya maya way noo shahay lugtuu ka soo jibiyey daaqada noo soo geliyey idinka ma jecel marka shimbiraha maya saa jecel asaa noo soo geliyey shimbirtu marka noo soo geliyey ilmaha naga saseen walaashay saari xitaa way joogtay way carartay banaankay aaday aabba waxaa dhahnay aabba nagu soo kacay maxaa waaye aabba shimbira noola soo geliyaa dhahay
kabacdo wiilkan soo wacay wuxuu dhahay Leyla hadiida ma aragtay maxaa waa hadiida adaa soo gelisay miyaa haayo dhahay hadiida ana soo geli ma aragtay teeda kale hadaa Zahra ka harweyso ay isku dirnimada ay u wadid bamba ku soo gelina tookada dambo saasay ku dhahay xaran ma bii usoo dalma ii booteenay haday aaba u ku kooyay markaas uu seexday aaba soo kiciyay waxa dhaa aaba ninkan saasoo dhooyay maaniga khawti ma soo dacweysid saldhiga meeshan taale hayo dhaa birs wixii soo dacweyna uu soo dacweeyay walaasha way jecleed ma ninkeedii way jecleed ma laga harsii karin dhowr jeer dartiisa ina cad xitaa adi ninka diidaneed maya ana barabe babajeega isku baran wiilkan babajee maxaa la ciyaaro waay ani wiilkan ana baro xitaa wala shay dawala mbar lahayn marka adiga babajeega waa isla ciyaar jirteen miyaasiga labadu kulaatini labadu isla ciyaar jireen saddexdii ilaa afartii meelaas inta u dhaxayso ay iska fadhiisteen xeer ilaaliye kabtan Cabdicaziis Cusmaan Faarax Cabdiyare oo maxkamadda hor keenay galkan ayaa ku adkaystay in eedeysanaha uu si ula kac ah u dilay xaaskiisa eedeysanahan oo ka tirsan ciidanka hay'adda nabad-sugidda sirdoonka qaranka ayaa waxaa laga soo qabtay oo ciidanka ay ka soo qabteen isbitaal kalkaal isagoo isku dayay inuu goobtaas ka baxsado 2 bishanaad 2026 maxaa yeelay gabadhi meesha ku dhimatay meeshaasna inuu joog suurtagal maahan laakiin ciidanka amniga ayaa qabtay waxaana markaas lagu eedeeyay inuu dilay Zahra Faarax Yuusuf oo ah xaaskiisii uur 16 isbuuc lahayd gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh marxuumadda waxay hore uga dacwootay ay dhowr mar ku dacwootay laamaha kala duwan ee cadaaladda sida saldhigyada hay'adda nabad-sugidda waaxda garmaqal gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh sidoo kale waxay u cabatay walaalkeed iyo waalidkeed oo aabaheed meesha uu ka sheegay in muddo badan ay isku rafaadsanaayeen Cabdulaahi waxwaax iyo asaga khilaafka u dhaxeeyo aabahan gabadhiis la dilay iyo ninka eedeysanahana wuxuu ku saleysnaa war gabadhan waa ku siiyay shalan waxa ku balanay hadda is anfici weysaan iyo soo celi haddii kala dhaqo oo nin reer leh oo reerkiisa dhaqanaya noqo laakiin marmarka sii dambayso uu sii dilay ilaa heer ay gaarto inay uga cabato taliskiisa heerkaas maxaa gaarsiinay family waa ka tagtay gudoomiye waxay maraysaa in ay ku dacwoto fadhigiisa ciidan ay ku dacwoto markaas maxay ka cabanayeen gudoomiye jirdil ay ka cabanay iyo dhibaato uu ku hayay Cabdulaahi waxwaax gudoomiye waxa xusid mudan oo aan tuunsanahay oo xafiiska xeelaalinta u cadaatay in habeenkan maadaama uu u yeertay walaalkeedna inta uu ka cadeeyay in uu dhahay aabaha aadin iyadana ay aad habeenkaas maadaama uu togtoogay oo u wacaayay inuu dilo maxaa yeelay intaas oo dhan way maqneed sababta reasonka keenayso habeenkii koowaad ay u hoyatay in uu dilo maxaa waay waa cadowtinimo iyo xiqdi iyo xaasinimo iyo inuu nafta dhaafiyo 20 kun oo sheegaya ka dhaba gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh habeenkii u hoyatay wuu dilay oo meesha ay ku qoran tahay wali wuxuu ku dhuftay naaska bidix ku dhuftay bidixdan waxa ku jiro wadnaha ku jiro gudoomiye waa meelaha askarta la baro in laga toogto cadow waa qatar bidixda iyo madaxa iyo dhabarka qofka meelaha uu soo laabanayay kamid tahay iyo xubnahan hooso gudoomiye ka soo maxkamad sharafta marka meesha uu ku dhuftayna waa meel aad u qatar badan eedeysanaha sawirkiis waa kara eedeysanahan wuxuu ku dhashay kuna barbaaray degmada Shibis halkaas ayuu ku bartay dugsiga Quraanka waxbarasho maadi ah wuxuu uga haray fasalka shanaad dugsiga Walawaal ee ku yaala Boondheer ayuu dhiga jiray markuu ka haray waxbarashadana ciyaar xaafadda ayuu isku ahaa ciyaar balooni wax kale ma uusan qaban sidoo asiga sheegay ciidanku wuxuu ku biiray 2024 wuxuuna soo dhameystay tababar wuxuuna ka shaqo bilaabay degmada Cabdicaziis halkaas oo muddo ka shaqeeyay ilaa hadda uu ka shaqeynay marka eedaa la weydiiyay wuxuu sheegayaa inay gabadhiisa oo maseersaneed ay kula dhagtay bastooladiisa asagana uu banooni markaas ka yimid isku dhadhigi inay xabad ku fakatay laakiinse xabad ma fakato ilaa waa loogu tala galay xabaddu waxay leedahay habraac ay leedahay gudoomiye waxay leedahay raacsiin waxay leedahay in qasnada la taabto waxay leedahay in ammaanka la furo intaasoo isteebaa la maray wuu u diyaarsanaa mar gabadhan maadaama uu yeertay maadaama uu yidhi habeenkan in soo hoyo maadaama uu bastooladii oo habartiis ay noo sheegtay in uu ayada u dhiibi jiray si ay meel ugu dhigto uusan u dhiibin way fadhidaa ayada
habeenkaas uma dhiibin wuxuu damacsanaa inuu dilo taas ayaa ku cadeynayso maxaa keenay habeenadii hore hooyadaha u dhiiba jirtay baskoolada u dhigi jirtay meel loo dhigay oo subaxii ka qaadan jirtay maxaa keenay in habeenkii gabadhii ay ku soo hoyatay ayadoo kaa xanaaqsaneed iyadoo ciddada isku xuntihiin in habeenkii ay ku soo hoyatay baskoolada ay guriga la gasho oo qolkaada ay ku dhex disho keliya waxa uu ka rabo waxaa waaye yaa arkaa in la dilay weliba waxyaabaha cajiibka oo baaris uu soo saaro waxaa ka mid ah wuu inkiray idaa isdisho yiri baaristii ku soo baxday oo marka dambe ku sheegtay inuu asiga dilay mudug gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh waxaan ognahay marka haweenka ay xaaladaas ay ku jiraan oo ilmo calooshooda lagu beero inay u baahan yihiin xadaano gaar ah inay u baahan yihiin daryeel gaar ah inay u baahan yihiin gowraqab gaar ah intaasba kama helin bal iyadoo dili jiray marka ma iska dhaheeno iyadoo dili jiray iskama dhaheena waxaan keenaynaa meeshaan qaabkii u dilay iyo jirdilka hore u geystay sawirradan waa sawirradii hore mudug gudoomiye dhaawacyada aad arkaysaan ma ahan dharbaaxshi waxaas maaha waxaan waa karbaash gabadhaan saan u karbaashay horosaan ugu dilay waxa korkeeda ku yaalo oo u gudguduutay waa dhaawac hore waa waxyaabaha ay ugu dacwatay waaxda garmaqal ee hay'adda nabad sugidda sababtay u dacwoonaysay xanuunka uu ku haayo dhibka uu ku haayo waalidkeedii ku dacweysay walaalkeed xooga dalka Soomaaliyeed uu ka tirsan yahay ku dacweysay markii ku dacweysay hore kama abaarin balse waxa la dhooraayay waa sharci waxa la dhooraayay waa laama amni in wax ka qabtaan oo ka ceshaan gabadhi saan u dilay markuu saan u dilay waxay report gareysay garmaqal qaabkay u report gareysay ugu dacwadeen qoyskii waa garmaqal waatana fariinta garmaqal loo diray case numberka case-kan maadaama garmaqal kala badan ay qabato waxa waayay 1089 waxaa xafiiska la soo xiriiray muwaadin lagu magacaabo Faarax Yuusuf Maxamed oo nambarkaas lah oo ah aabaha marxuumadda Allah u naxariistay wuxuu cabasho ka ahaa askari dhacad ah oo lagu magacaabo Cusmaan Cabdulle Basay lambarkaas leh wuxuu qabaa gabadhiisa oo lagu magacaabo Sahare Yuusuf Faarax oo u geystay jirdil leef garaac mudug gudoomiye maxkamaddu in inta fahantaan rabaa bastooladu ku leef garaac jiray intoonan dilin ka hor bastooladu ku leef garaac jiray leef garaac oo u geystay taariikhdu markay ahayd waqti laga dacwoohayo waa 2dii bisha labaad waay marka dhacdadan waa soo daba jiitantay waa madda maanta keentay inuu marxuumadii dilo waa cadaaladeeda aan u fadhin mudug gudoomiye dhaawacyada kale u geystay waxaa ka mid ah dhaawacyadaas oo korkeeda dhan ah marka dhaawacyo qarsoon xataa maaha oo dhaawacyadaas ay ka cabanaysay ugu dambeynna waa uu dilay goobta uu ku dilayna waa goobtan gurigaas waa qolkaas ay degnaayeen gurigu wuxuu ku yaalaa Boondheere waa gurigan dabaqa ah sariirta uu ku dilay waa sariirtaas dhiiggeeda ayaa dul saaran waa u jeediyay mudug gudoomiye xabaddu inay target ahaydna waxaa ku cadeynayo meesha uu ka toogtay oo ah meel aan laga soo waabsan karin muuqaalka laga duubo waa sariirta iyo guriga wuxuu fiirsaday uu ilaalsaday xilli ay dadku ku yar yihiin oo soo sheegayso 3 cunug yar yar joogeen wax ka celinayo soo baxayo ma aysan jirin taas oo keenayso in ay badinayso tuhunka ah in uu gabadhan uu yeertay inuu dilo oo nafta dhaafsiyo sidoo ayadii cunugeeda mudug gudoomiye cabada meesha uga galshay waa meeshaas waaye gabadha la dilayna waa taas xabada marka sa dareemaysa mudug gudoomiye waa saas xabada fakatay iyo meel ay saan u sartay waxbay ahaa lahayd xabada marka inta la saaray dhush lagu sii waa xabada qaabka u muuqato inta la saaray aariishada lagu taabtay marka aad weydiiso dadka ku taqasay khibradaha u leh xabadaha iyo noocyada ay duleeshaan xabadan waa xabad inta la saaray lagu dhufto marka waa dareemaysaa marka inay ay tahay shirqool iyo dhibaato goobtan waa goobta guriga uu ka dhacay waaye baal ka dhacay waaye ma duubayso gudaha ma duubayso wax ka dhacay warqadan isbitaalka waxaa ka muuqata mudug gudoomiye waxay leeyihiin isbitaalka waxaa la keenay gabadhan iyadoo meed ah marka warka uu qaataa uu weydiiyahay baaray kamid ahayd isbitaalka marka la geeyayo waxay ahayd meed baaraha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa fadhigan keenay natiijada baarista galkan intaasi kadibna doorka gabagabada ku xigeenka xeraliyaha guud ee ciidamada kabtan Cabdicasiis Cusmaan Faarax Cabdiyare ayaa maxkamadda ka codsaday in diil toogasho lagu xukumo eedeysanaha mudug gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh eedeysane mudan Nisa Cabdullaahi Cusmaan Cabdulle wuxuu ka tirsan yahay ciidanka hay'adda nabad sugidda
wuxuu ku biiray ciidanka 2024 waxaa loogu talagalay amniga shacabka Soomaaliyeed inuu ilaaliyo waxaa la siiyay bastooladaasna looma siinin inuu familkiisa ku handado inuu ku handado Allah u naxariistay marxuumad Sahro inuu ku handado walaasheed Leelo oo meeshan iyadoo baraka tahay ka sheegtay oo uu dib ku hayn jiray xitaa uu gurigooda uu ku tuuray qoolay oo luka jaran xataa way sheegtay oo Leelo ayaa sheegtay meeshan ka sheegtay marka dambana wuxuu ku dhahay bamba ayaan soo geli doonaa guriga muddo gudoomiye gasar maxkamad sharafta leh eedeysana waax bishii 6 2025 ee gabadhaas lagu meeriyay gabadhana wuxuu leeyahay dhaqankeeda dhiigeeda ma laha dhaqankeedana wuxuu ahaa in la uu dhaqdo sida dadka islaamka ay u dhaqdaan oo ilaahay ayaa nafarayo qaabka qoyska loo dhaqayo waxay aad muddo gudoomiye gasar maxkamad sharafta leh inuu way arag u ahaado waxyaabaha ku soo kordhaya gabadha iyo isbedelada ku dhacaya jirkeeda muddo gudoomiye gasar maxkamad sharafta leh in case haday dhacdo qaabka loola tacaamulayo shariicada islaamku way nafartay oo waxa ku banaan inaad ka hajirto waxa ku banaan inaad waaniso waxa ku banaan oo mid ugu dambaysa ah inaad wa ardullahi waasi'atun abanaan kala martaan laakiin intaasba ma sameenin ee wuxuu sameeyay in uu maalin kasta u tumo in ay gabadhi ay xasilooni weydo gurgu xasilooni waa deganaan in ay deganaan weydo in ay xasilooni weydo in dhibaatada inta la oo korkeeda ku yaalo oo dhan ay ku yaalaan haddana waxay ka dareemaysaa muddo gudoomiye galgaceelka iyo jaceelka uu qabtay dartiis sidaas asoo u galaayo in habeenkii marka iimaaw uu dhahay ee u tagtay habeenkaasna uu dhaafsiyay nafteeda ugu dambeyn waa meesha ugu darneed uu dhaafsiyay way korkeeda joogay inuu jir diroog joogay inuu liif garaaco joogay inuu xabad ku handado joogay inuu walaashad handado joogay inuu aabuurkiilno joogay inuu aabad ixtiraamino joogay waxyaabahaas oo soo joog ugu dambeyn gabadhi dhammaay oo la siiyay oo aabad inta ka sheegay 17 jir ah farta laga saaray ayuu nafta dhaafsiyay wuxuu nafta u dhaafsiyay marka weydiisane sababta maxay ahayd wuxuu ku leeyahay maseera uu maseersanay saasan u dilay maseer ma isku dilaa maseer ma u dilay gabadhaadi maaga caloosh ku wado maya shariicada islaamka dhig meesho sharcigu dhig maayo damiirka insaanka ay Soomaalida dhig meesho muddo gudoomiye Sahro waxay ahayd gabar aqoon-yahanad ah oo aabadan urdun u ah aabadan uu fiirsanayo aabaheedu aad u jeclaa jaceelka aabaha uu qaba darteed waxay gaarsiisay iyada oo dacwoonay inuu si dacwoodo waxay gaarsiisay inuu garmaqal tago waxay gaarsiisay inuu dhow gabadheeda ninka haleeyay cisho waxay gaarsiisay inuu ka dacwoodo degmadii meel walba ayuu ka dacwooday taasoo ugu dambeyn sababtay in uu gabadhii u ka waaniyo laakiin gabadhii qadarteeda ku qornaa gurigaas inay tagto wax u tagto eedeysana waxan ugu dambeyn uu dilo muddo gudoomiye gasar maxkamad sharafta leh marka askariga la barayo qaabka hubka loo saaf gareeyo hubku wuxuu leeyahay meelo la dhigo wuxuu leeyahay qaabka loo ilaasho qoyska wuxuu leeyahay qaabka loo tacaamulo lama tacaamulin wax wuxuu ku fiicnaa oo hooyis ee noo sheegtay inuu hubka ayadu u dhiibi jiray laakiin habeenkan xanaaq ahay dartiis ma u dhiibin bastoolada hooyadiis kilidiis soo gashtay guriga gabadhi soo gashay waa uu wacday waa uu maaday ugu dambeyn waa ku bax muddo gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh hubka sidiisa ma banaano in lagu garaaco ama lagu handado haweenka caruurta ama dadka nugul uu sameeyay uu ku garaacay cadeynta soo bandhigay muddo gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh sidoo kale hubka guriga ay joogan haweenka waliba xaaladaas ku jiro xool baa ka iman karo lama ogolo in uu ku dhax isticmaalo ciidanku waxay leeyihiin hubka meel la dhigo oo safe house oo loogu talagalay in hubka la dhigo haddii uu watane waxay aad inuu ka badbaadiyo qoyskiisa iyo naftiisa muddo gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh hubka waxaa loogu safe gareeyaa meel qufulan in la galsho in rasaasta laga baxsho inaan la goob gareenin in ammaanka la xiro waxyaabahaas oo dhan lama adeegsan ee wuxuu sameyn jiray waax inuu ku cabsi geliyo inuu ku liif garaaco haddana waxaan dareemaynaa isagoo liif garaacayo inuu ugu dambeyn ay ka tustay
shaydaankana ka tusay in uu dilo xaaskiisa gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan caddeyntaas ku dhisaynaa 4 walxaato oo aan meeshaan soo bandhignay koow waxaan keennay walaalkiis oo sheegay inuu hore u xalliyay ahaana nin gacan qaad badan diri jiran asigoo meeshaan ku sheegay in naagtiis waa isku dhacaan laakiin garaacitaankan ma aha isku dhac gudoomiye waa garaacis la garaacay gabar dhan oo lagu aaminay gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh labo waxaan goobtaan keennay walaalkeed oo sheegay in ay la joogtay abriil oo dhan 30 abriil ay ka soo tagtay habeenkii u hoyatana dilka u dhacay waxa mucjiso ah oo la yaab ah gabadha saas ku jecel xaaskaaga ah oo ilmahaaga calool ku wado ina anta wacdo inaad disha u wacdo qaabkaas wadan u dilay waa midda labaad midda saddexaad waxaan meeshaan keennay gudoomiye inuu khilaaf jiray oo gurigaas khilaaf ka jiray gabadhan dhowr mar ay ka dacwotay aaba faarax uu cadeeyay goobtan ka cadeeyay gabadhiisa dhibka uu ku haay wuxuu sheegay muddadii laga guursaday ilaa hadeertaan ay dhimanayso inuu ku dhex jiro buuqooda inuu meel uu ka mar u waayay xitaa fadhigiisu ku dacwiyey inuu gudbiyo sawiro inuu case number loo furay inuu gal u furan yahay inuu ku dacwoodo nisa dacwadii oo taaganay ugu dambeyn gabadhii uu ka dilay markii uu sii hayana dardaaran cajiib ah ayuu siiyey maandhow haddee ku anfacdo dhaqo haddee ku anfacin gabadheeda sii laakiin kuma dhaqmine anina ima jirto yiri anda kuma jirto waxay u hoyanaysaa qabri asaa xabadda ku dhuftay gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan meeshaan keennay oon soo istaajinay hooyadiis luul oo caddeynta laga qoray ay ka mid tahay in hubka uu u dhiiban jiray ayada marka meesha aan tuhunsannahay oon diyaar garowka ka raadinayno gudoomiye waxaa waayay hubkii ayuu ka qaatay hooyadiis salax kadib si gabadhii uu soo socoto xaafadda imaanayso oo ugu dilo caddeynta laga qoray ku jirta hooyadiis hubka idaa weyn jirtay idaa xafidi jirtay idaan ilaalin jirtay taas waa jirtaa gudoomiye sidoo kale xeerka hubka iyo qaabka loo isticmaalo waa yaqaana iyada ma taqaan waa iga fakatay waa marsiyo hubku wuxuu leeyahay in la goobgareeyo in ammaanka la xiro ammaanku la furay qasnadoo la qabtay lagu aadiyey xabadda dee fakatay saamay u sarto saamay ugu dhacdo saamay u gasho saanay u gasho gudoomiye marka taas waxay ku caddaynaysaa in uu ahaa kiiskani kiis kas ah waxaan tixeeno waa sababta maxaan ku dhihi karnaa sababta aan ku dhihi karna dilkan kas waayo maxay tahay midda afaraad gudoomiye meesha waxaa keenay leelo oo khilaafkooda muddo dheer soo jiitamay og oo sawirada ayada ka qaaday sheegtayna meeshaan walaasheed dhibkaas gaaraha xatay uma aysan jeedinay waxay u jeeday inuu gurigeeda u dhaqnaado ay ku deganaato waxa ay gurigeeda u soo aadayso waxay ahayd inay jaceylka u qabto dartiis laakiin asaga uma qabin maxaa caddeehay wuu dilaba qofaa jecesha maa dilay wuuba dilaba naftoo kow ka siiyey gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh sidoo kale isbeddelka jireedna waa sheegnay oo ku dhacaayo haweenka xilliyadaas oo kale iyo xadaanada iyo ilaalinta loo baahan yahay maxkamadda sharaf kale waxaan soo gudbinay in iyadoo meeda la geeyey isbitaal madiino warqadda way ku caddahay sidoo kale waxaan soo gudbinay bastooladii dilku lagu geystay waxaan meeshaan ka tusnay qaabka sariirta u tiilay iyo guriga qaabka u yiilay oo meeshaas waxaa ka caddaatay xataa guriga uu ku balansaday inuu yahay guri cidlo ah oo ugu talagalay xilligaas cidlada ah inuu tartiib u cuno gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh falkaasi xafiiska wuxuu u gartay inuu yahay fal kas ah wuxuuna ku soo eedeeyey 434 oo dhigaayo qofkii qof dila si kasaan u dila in loo dilaayo gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan ku soo eedeynay aayadda 178 suuratul baqara aayadda 45 suuratul maa'ida dhammaanna waxay dhigayaan dilkii ka hadlaayaan gudoomiye maxkamadda sharafka waxaa ka codsanaynaa dil toogasho inay ku xukunto mudana nisa cabdullaahi cismaan cabdulle axmed waaxwaax oo dilay xaaskiisa si kasan u dilay maxkamadda waa maasanta
qareennada ayaa ku dooday in falkan uusan ahayn mid kas ah dhimashadana ay keentay dayaca dhakhaatiirta iyagoona codsaday in eedaysanaya waaxwaax maxkamadda ay ku xukunto bixinta magta marxuumadda. waxaan dul istaagi doonaa difaaca eedaysanaha. marka ugu horeyso eedaysanaha qodobka eedda ee xafiiska xeer ilaalinta uu u soo jeediyey oo ah dilka ula kaca ma aha eedaysanaha mid mas'uul ka ah dil ula kaca. sidoo kale ma galin dembi dil ah waxna ma dilin mas'uuliyad dilna ma qaadayo cadeymaha aan soo baldhigi doono darteed. marka ugu horeyso waxaa muhiim ah haddii la fiiriyo labada dhinac ee la leeyahay dhibaa kala gaaray waa laba dhinac oo isu soo dhowaashahooda xiriir guur uu keenay waayo. marka meesha ayada ah waxaa ka baxayo maxaa isu keenay. midda labaad faldembiyeedka goobta uu ka dhacay waa gurigii labada qofood ay ku wada noolaayeen. laba qofood oo guri ku wada nool waa isqabsadaan wax walbaa ka dhaco. midda saddexaad waxaa waaye maaddada la leeyahay dhibaa lagu geystay ma aha maaddo ka fog eedaysanaha waa maaddo xiriir la leh oo ay ku xiran tahay shaqadiisa. ciidan waaye bistooladda asay ku qoran tahay hub sharci darro ah lama keenin maxkamadda horteeda eedna loogama dhigin. saddexdaas marka waxay tusinaysaa in aysan jirin laba qofood ama dhibka dhacay inuusan ahayn dhib dil ah oo ula kac ah. dilka ula kaca mudan guddoomiye waxaa muhiim ah in la helo laba maaddo oo tiir weyn u ah in uu jiro qorsho oo qofka soo qorsheeyey in uu ku waxyeeleeyo qofka kale fal ma jiro. marka qorsho halkan la keenay ee la sheegay ama la soo gudbiyey marag ha ahaado ama xog waraysi ama baarihii kiiska ama xeer ilaalintaba qorsho ku yimid dil ula kaca ee inta laga sheegay ma jirin. midda xigtana waxaa waaye in uu qofkaa asaga ah qiraal uu yahay. qiraal kuma aha in uu geystay fal dil ah oo ula kaca qiraal kuma aha. labadaas waxay meesha ka bixinayaan marka in eedaysanaha la qaado oo la dul saaro qodobka 434. markaan u noqdo marka xabad fakatay oo dil sababtay waxaa loo tixgelinayaa dil khalad ah. mar hadduu qofku dhaho anigu xabaddaani uguma talagalin meeshii ay u socotay tixgelinteeda waxay noqonaysaa dil ula kacahay noqonaysaa wax kama ah oo qofkii ka dhacayay noqonaysaa. sidoo kale 2 sano ayay wada noolaayeen. marka ma waxaa la leeyahay maalintou soo guursadow xiriirkii ka bilaawday wuxuuna ku ekaaday marxuumadda maalintii wakhtigeeda u dhammaaday 2 sano xiriir qorsho ah oo ku jira maa la leeyahay maya. marka mar haddii aanan la tilmaamin in faldembiyeedka maanta inta lagu sheegay uu yahay mid qorshaysan waxaa la rabaa qorshihiisa in la sheego meesha uu ka bilowday laguna keeno maalinta ugu dambeysay ee dhacdada ay dhacday lama tilmaamin. marka qadar dhacday aa loo aqoonsanaa. markii aan intaas ka gudbo mudane guddoomiye dhinacyadu hadday ahaayeen dhinacyo xiriir uu ka dhaxeeyey midda labaadna ay tahay goobtu goob nololeed oo ayan ahayn goob colaadeed oo ahaa qolkii marxuumadda iyo eedaysanaha
ay ku wada noolaayeen midda saddexaadna ay noqonayso shayga in uu yahay shay asiga ka fog uusan ahayn oo uu yahay shay xiriir la leh oo asagu inuu ku xirnaado ay tahay midda afaraadna ay tahay falku inuusan ahayn mid loogu talagalay ama uu u qasdiyey tan shanaad waxay noqonaysaa goobtaasi inay ka dhacday dhaawac cabdullaahi marka wuxuu geystay faldembiyeed dhaawac uu geystay faldembiyeed dhaawac soo ku geysta marka cabdullaahi falka uu geystay faldembiyeed dhaawac uu ku geystay waxaa caddeen u ah marka ugu horreysay inuu gurmad weydiistay wuxuu u wacay ehelkiisii gurigay soo galeen wuxuu wacay dadkii la qaadi lahay dhallinyarou wacay wuxuu wacay gaadiidkii oo gurmadka ku samayn lahay ayuu wacay wuxuu geeyey isbitaal kalkaal ayuu geeyey marka qof wacday waalidkii wacday gurmad dad la qaado wacday gaadiidkii oo ku qaadi lahay ka qaaday goobtii ay wax ka dhaceen ee geeyey isbitaal kalkaal ujeeddadiisu ma ahayn in uu sameeyo fal dil ah oo ula kaca ujeeddadiisu maba ahaynba maxaa dhacay marka isbitaalka markii la geeyey waxaan aaminsannahay in uusan helin gurmadkii la rabay in loo sameeyo marxuuma zahro lama helin maxaa caddeen u ah waxaa caddeen u ah warqadda isbitaal madiino ay soo qoreen oo ay leeyihiin waxaa naloo keenay zahra faarax yuusuf 1dii bishii 5aad 2026 saacadduna ay ku tilmaameen in loo keenay 8dii subaxnimo waxay leeyihiin marka waxaa naloo keenay waa isbitaal madiino waxaa naloo keenay leeyihiin qofka asaga ah waxay tilmaamayaan marka oo ay leeyihiin mudane guddoomiye baaritaankii raajitada ayaa lagu ogaaday dhiig ku jira xuubabka sanbabka bidixda dhexdooda sanbabka ayaa waxaa laga ogaaday raajitadii inuu ku jiro dhinaca bidixda xabadda uga dhacday inuu ku jiro xuubabkiisa dhiig maxaa imaaday marka waxaa imaaday dhiigbax gudaha in qofkaani uu helay inay ku dhacday dhiigbax gudaha maxaa loo baahnaay marka in la sameeyo waxay ahayd traje in la sameeyo macnaha in la jeexo la geliyo tubo laga daadiyo ma helin marka intaasi mar haddii aysan helin marka wuxuu u ictimaadayaa sharciga ama xeerka in uu geystay dhaawacii oo geystay ee isbitaalka lagu geeyeyna ay la kulantay ka gaabin halkii la rabay in lala tacaalo yaa sheegayo waxaa sheegayo oo markhaati ka ah isbitaal madiina warqadiisii halkan marka waxaa ka maqan in la helay ahayd isbitaal kalkaal riboorkiisii ama warbixintiisii in inta lagu shubay ahaydoo inta laga dhex arki maayo marka sidii qof cusub oo kale oo ayadoo geeriyootay loo soo qaadoo kalaa loo keenay goobtii taasi marka waxay keenaysaa in eedaysanaha uusan qaadaynin mas'uuliyadda geerida ama mas'uuliyadda dhimashada in uusan qaadaynin ay keenaysaa eedaysanaha saas darteed marka in laga qaaday ahayd qodobka 434 in laga qaaday ahayd ee la aado qodobo kale in la aaday ahayd hal in la aaday ahayd 441 oo ah wuxuusan filaynin wax ka gadisanayeen ujeedkiisa marka haddii ay ahaan lahayd inuu dilay baarihii inta waxaan ku weydiiyey su'aal ah bistooladiisa rasaas kale ma ku jirtay yes rasaasta kale uu ku dili lahay hadduu aimkiisa uu yahay inuu dilo haddii marka uu hal xabad ay ku dhacday micnaheedu waxaa waaye xabadda sida uu u sheegay asaga loo qaadanaa oo ah qabsashadii la qabsaday iyo idaydii uu dhahayay inay sidaa xabaddii ku fakatay marag ma joogo yaa si ka gedisan u sheegi karo markhaati haddaan la haynin marka kaamiro duubaysana aysan jirin
yaa sheegi karo waxaa sheegi karo falka iyo sida uu u dhacay cabdullaahi asaga in laga waraysto ee la dhegaysto waay waxa marka problemka imaanayo waxaa waaye hubka wuxuu lahay qaab iyo hab iyo meel lagu haayo lahay sax waaye cabdullaahi hubka wuxuu u dhiiban jiray hooyadiis laakiin ayaan daro xafiiska xeer ilaalinta waxay ka gudubtay in habeenkaasi ay u hoydeenba guriga habeenkaasi waa habeenkii ugu horreeyey oo u hoyanayo guriga cusub taasaa keentay marka inuu bistooladda habeenkaasi waqti dambowna yimid saasoo gurigiisii ku soo galay asoo balooni ka yimid marka ma aha in habeenkaasi oo u soo qaatay inuu faldambiyeed gala ma aha sida loo sheegayo ma aha picture aanan ahayn sawir aanan ahayn cabdullaahi ayayna muujinaysaa middaas midda xigta waxaa waaye mudan gudoomiye sababta iyo in la kala qaado waaye natiijada sababta in qofka oo dhacdo sababo way imaataa laakiin waxaa la rabaa natiijada imaanayso in ay tahay natiijo asaga niyadiisa ka timid ama natiijo asaga uu sameeyey in ay tahay waa oo qasday inuu u qasdiyey waaye gabadhaasi inuu dilo uma qasdinin hadduusan u qasdinin marka ee uu leeyahay xabaddu waa fakatay xabadda waa fakataa horena waa u fakatay haddana wayna fakan doontaa intii bini aadan gacantiisa ay ku jirto marka ujeeddadu ma aha marka in la soo qaato 434 xeerka ciqaabta waxaan leenahay annaga cabdullaahi ma aha qof dembiga dilka ah geystay ma aha cabdullaahi ma aha qof mas-uuliyad dil qaaday ma aha cabdullaahi ma aha mid sababay in ay gabadhaasi geeriyooto ee gabadha sababteeda waxaa keenay waxaa waaye sida warqadda ay sheegtay dhiigga sanbabkeeda oo gudaheeda galay oo ay ahayd in gurmad loo fidiyo lagana saaray ahayd because habeenkii saq dhaxaa la geeyey isbitaalka subaxii 2 saacna waxaa la geynaa isbitaalkii kale waxay ku tuseen marka cadeyna loo soo qaatay midaan isbitaalkii dambe waxay ku tuseen marka isbitaalkii wax qabadkiisii in meesha ayada ah ay ku dayacantay sababtana ay leedahay isbitaalka uu leeyahay ujeedada dhimashada iyo geeridana ay tahay mid mas'uuliyadeeda uu qaadayo gacanta ugu dambaysa qaadayso gacantii ugu horreysay asaga waaye dhaawaca waa maxkamadda inay u aragto kaliya in uu yahay qof keensaday dhaawac galay laakiin ayan uusan ahayn in uu la yimid faldambiyeedka ah 434 hadduu la imaan lahay goobtay ku dhiman lahayd meesha ay joogto ay ku dhiman lahayd waxay ku tuseen marka haddayan goobtii ku dhimanin gacan kale ay gashay gacantaas kale mas-uuliyaddii waxbay ku yeelanaysaa baaritaan dheerna lama samaynin in baaritaan qoto dheer ah la sameeyay ahayd saas darteed gabagabada waxaan siinaa qareenka sharafta leh ee igu xigo maxkamadduna waa mahadsantahay labo in cabdullaahi caa'iladiisa ay baxshaan lana dul saaro diyadda marxuumadda si waafaqsan shareecada islaamka saddex in cabdullaahi aan loo qorin canaan tacsiir ah maadaama uu yahay nin dhallinyaro ah qarankana u shaqeeyey muddo 2 sano ah haddana u caaboon inuu u sii shaqeeyo shaqadiisii ay ku celiso maxkamadda bistooladiisina ammaan ahaan ee ugu haysa cabdullaahi inta uu ka soo baxayo maxkamadda waa mahadsan tahay cabdullaahi maxaa ku baxay waxaa ii baxay dil kas ah inaanan geysan oo jirin oo wax caddeehay aanan jirin oo wax oo lagu eedeynayo ma jirtaa leeyahay gudoomiye adiga gurigaagaba joogtaa biskooladda maxaa raaciyey oo ammaankana furan xilligii aan imaado aniga banooni ka imaaday biskoolad shaqada markaa ka imaaday banooni iska aaday biskoolada xabad iyadoo raacsaneeda guriga imaaday midda kalena biskoolada ammaankeeda waxa kaliya oo wax yar oo basiida furi karo oo suunka marka inta ay ku jirto markii la soo bixinaayo way furay in badan iyadoo iga furto waa arkay gudoomiye gabadha yaa qaaday marka xabadda ku dhacday anaa gacanteeda ku qaaday isbitaalka geeyey iyadoo nool oo isbitaalka joogto oo operation ku socdo aa lii soo xiray iyadoo naf qabtaa ka soo tagay gudoomiye raggan aa u wacdo meesha muuqaal ka muuqdo ilo u wacdo kula qaaday waa magacood ma taqaan wallaahi xilligaas dadka wejiyadooda iyo aniga shooga igu furnaay oo dhacdada ka naxay dadku laakiin hal wiil ka garanaya jiro oo wejigiisa si fiican u arkay inta kale wiilasha xaafadii ahaayeen oo banaankay joogeen laamiyada maxaa leedahay axmed sheeruuqa mid ay dhahayaan ku jiro oo laamiga ganacsi ku leh
maxkamadda maxaa ka dalbanay maxkamadda waxaa ka dalbanaa anigoo xaaskeyga iga geeriyootay dhiban oo walwalsan kurbaysan aan hurdin siil ii soo xiray ilaa hadda aan hurdin habeen iyo maalmo hurdo gudoomiye maxkamadda waxaan ku codsanaa xaaskeyga maadaama iga baxdo cunugeyga 4 sidoo xeer ilaaliye hor u sheeg 8 bilood 2 isbuuc bay ahayd oo dhaay been waay taas waxay ahayd 4 bilood anaa ka walwalsan aabbo ma jiro oo xaaskiisa iyo wiilkiisa u horeeyay oo iska dilaayo gudoomiye waxaan maxkamadda ka codsanaa in xorriyadeeda isiiso labadeeda ehel ee wada hadlaan taasaa ka codsanaa maxkamadda sharafta leh gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qaranka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdifataax aqyaar warbaahinta qaranka muqdisho